95 arday oo ka mid ah dufcadii labaad ee barnaamijka shaqo qaran ee nasiibka u yeeshay inay ku soo baxaan imtixaankii dhawaan loo galay barnaamijkaasi kuwaas oo metelaya gobolka Togdheer ayaa subaxnimadii hore ee saaka lagu sii sagootiyay xarunta maamulka gobolka Togdheer ardaydan oo tababar muddo 3 bilood ah ku soo qaadan doonta kulliyadda tababarka ciidanka qaranka Soomaaliland ee Dareerweyne ayaa waxa halkaasi hadallo duco dardaaran iyo dhiirigelin iskugu jira uga jeediyay dhammaanba mas'uuliyiin gobolka Togdheer kuwa wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada Soomaaliland ee gobolka Togdheer maanta oo khamiis ah waxa halkan xarunta gobolka Togdheer anagoo ah madaxdii gobolka Togdheer oo uu odaynoo yahay barasaabku waxaan halkan ka amba bixinaynaa difcadii labaad ee shaqo qaran ardaydii ku guuleysatay baan halkan ka amba bixinaynaa waa iska kooban yahay marka ugu horeysa waan hambalyeynaa ardayda soo baxday ee Jaaniska u heshay mar labaadka waa u ducaynaynaa waxa ugu ducaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu fudaydiyo ku guuleeyo kuwii qaranka iyo naftoodaba wax ku soo kordhiya nolosha kaalin mugla ka gala ujeedooyinka loo maalgelinayana ka jawaaba kaalmaha lagu wadana buuxiya mas'uuliyiintii qaranka ee berito la noqda ayaan Ilaahay u weydiinaynaa halkan maanta waxaan u joognaa xafiiskii gobolka Togdheer ardaydii shaqo qaran ee ka ambabaxaysay aniga hadal kale oo ii hadhay ma jirto gudoomiyaha iyo baa la dardaarmi doonta iyo madaxda kale marka ugu horeysa waan idin ducaynaya waxaan leenahay Ilaahay ha idin fududeeyo shaqada aad u soo baxdeen ee u soo tartamteen Allah ha idin fududeeyo marka labaadna ha noqda kuwa qarankan wax ku soo kordhiya u dadaala u dagaalama u dhinta Ilaahay ha idin ka dhigo Ilaahay baa mahad leh Allah inoo sakhiray maanta inaan isugu nimaadno xarunta gobolka inagoo sagootiyeyna ardadii ama dufcadii labaad ee shaqo qaran marka labaad iyo mar saddexaad Ilaahay baan u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo suurto geliyay oo runtii barnaamijkan inuu hirgalo suurto geliyay isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa إن شاء الله تعالى أنت دردارك إذا يرادين مدحضو أيان لقبا وحرجينيا إناد قبل كمتشان وبلي قبل كي رجع متشان أتكاتان ونقطان رجع أدق أو كيمي قبل هذا وترتمى يعني قبل كي رجع كيمي وحنتكون همبلياننا واجبات كالله يدين إجماعي إن السوون يسرق الصبح حضان وضع عدنماء ووضر النماء أيان تكون همبلياننا المدحضة هير قبل ardayda halkan maanta aynu ka sii ama bixinaynay barnaamijka shaqo qaran iyo bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta waa maalin farxadeed waxaynu halkan ka amba bixinaynaa 90 arday 95 arday oo ah ardaydii dufcadii labaad ee u amba baxaysay tababarka barnaamijka shaqo qaran ee dugsiga tababarka ee Dareerweyne marka hore waan idin hambalyeeynaa guuleystayaasha imtixaankii ay gasheen ku guuleysteen waan idin ku hambalyeeynaa marka labaad waan idin sii dardaarmaynaa waxaan idin kula sii dardaarmaynaa runtii dardaarankii ay idin kula dardaarmeen ardaydii habeen hore xafladda idin ku qabatay ee dufcadii hore ka tirsanayd idin qabatay dardaarankii ay idin kula dardaarmeen dardaarankiisii baan idin kula dardaarmaynaa intaasaa dardaaran idin ku filayd nimankaasaa idinka warramay meeshii ay tageen waxay la tageen waxay kala soo noqdeen waxay la joogeen iyo waxa la idinka rababa tubtii ay idin jeexeen iyo dariiqii ay idin jeexeen iyo warbixintii ay idin siiyeen iyo dardaarankii ay idin siiyeen baa la idinka rabaa waxa xambaarsan tihiin magacii gobolka Togdheer baa xambaarsan tihiin waxa xambaarsan tihiin dabeecadii waxa xambaarsan tihiin dadnimadii waxa xambaarsan tihiin qiimihii intaba inaa ilaalisaan baa la doonayaa waxa wax la qaybsanaysaan oo tababar la galaysaan 1,000 arday oo ah ardaydii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland goboladiisa kala duwan ka timi waa inaga ilaalinaysaan ceebta jileeca waa inaga ilaalinaysaan waxa la rabaa rag adag inaa noqotaan oo si adag tababarka u soo qaadataan ومحمود أحمد أذن محمود دماشة ورركة تلفزيون كدلك برعو